السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن وناكسن لمان داود يا شقي ما شرفت لو دي لهانتي بكسر تاريخ مقالة مقدشو وعاصمة الجمهورية الفدرالية الصومالية وانا مقالة ugu population كي dadka badan Soomaaliya waxay dhacdaa koonfurta dalka Soomaaliya iyo badweynta Hindiya. magaalada Muqdisho waa magaalo qadiimi ah oo kumanaan sano ka hor jirtay. waxaa dheer badan loo aasay magaalada Muqdisho waqti aad u fog. taariikhahanaduna waxay isku khilaafaan qarnigii labaad ama qarnigii saddexaad ee taariikhda miilaadiyada in la aasaasay. Muqdisho waxay ahaan jirtay xarun ganacsi oo isku xirta Yurub iyo Hindiya ka hor inta aan la furin marinka Suez ee Masar. bulshada Soomaaliyeed ee ku nool bariga Afrika waxay soo mareen taariikho kala duwan iyo qabiilo ku soo kala horeeyay deegaanka. qarnigii 10aad magaalada Muqdisho waxay soo martay marxalado kala duwan taasoo ay taariikhahanadu sheegaan in aan loo aqoon magaca Muqdisho waxaana loo aqoon jiray Serabion. sida taariikhahanadu sheegaan magaca Serabion waxay sheegaan dadka wax ka qoray inuu ka kooban yahay 3 eray oo af Soomaali ah oo kala ah Sero oo la macno ah xiro iyo biyo iyo oon. Muqdisho waxay ahayd mid ka mid ah dekedaha ganacsi ee ugu muhiimsan bariga Afrika iyo adduunka. waxay xiriir ganacsi la lahaan jirtay boqortooyooyinka adduunka soo xukumay badidood sida boqortooyadii Roma, Giriigii hore, Faraaciinadii hore, Fiiniqiyiintii, Saba iyo Ximyar, Faris, Hindiya iyo Shiinaha. qoraagii Carbeed ee qoray buugii Mucjamul Buldan ee lagu magacaabi jiray Yaquutul Xamawi oo ahaa dhul mareen Carbeed ayaa diiwaanadii uu ka qoray dhulalkii oo maray sanadkii 1220 oo ay Muqdisho ka mid ahayd wuxuu sheegay in Muqdisho ay xilligaasi ka jirtay xadaarad aad u horumarsan oo ay degan yihiin barbar madow oo ula jeedo dadka Soomaalida ah oo la ekaaday dadka barbarka loo yaqaan ee dega waqooyiga Afrika sida Liibiya, Tunisia, Algeria iyo Morocco. Ibn Saciid oo sidoo kale ahaa qoraa juqraafiga iyo taariikhda ayaa ku sheegay Muqdisho xarun weyn oo lagu barto cilmiga shareecada ayna xukumaan salaadiin ganacsi weyn la leh dalalka bariga adduunka. Ibn Battuta oo ahaa sidoo kale dhul mareen Moroccan ah ayaa asna safar uu ku maray magaalooyin ay Muqdisho ka mid ahayd qarnigii 14aad ayaa xusay in Muqdisho ay ahayd magaalo weyn oo uu ka jiray ganacsiga iyo dhoofinta xoolaha iyo dharka sidoo kalena ahayd magaalo uu ka jiro xukun dawli ah. Vasco da Gama oo ahaa badmareen iyo sahmiye u shaqeynayay boqortooyadii Boortaqiiska ayaa sheegay Muqdisho inay ahayd magaalo leh suuqyo iyo masaajidyo minaaradahooda badda laga soo arkaya. wuxuu sidoo kale sheegay inay lahayd dabaqyo gaagaaban oo dhismayaasha labada qayb isa saaran ka kooban ee xilligaas kaliya laga yaqaan dhulka Beershiya. magaca Muqdisho ayaa meesha uu ka yimid asalka waxaa lagu cabiraa oraahyo kala duwan. oraahyada ugu badan ee la isku raacay ayaa ah inuu ka soo jeedo eray Farisi ah oo loo yaqaan magaca Shah oo la micno ah halkii saldhig u ahayd boqorka oo loola jeeday saldamadii xilliga hore ka talin jiray magaalada Muqdisho. magaca ayaa seed ama guduudneed oo ka tarjumaysa ganacsigii dahabka ee magaaladu caanka ku ahayd. magaalada Muqdisho ayaa kadib taariikhdaas dheer waxay noqotay mid ku burburtay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya kadib dhicitaankii dawladda dhexe sanadkii 1991. maanta halkaas ay inoo gaagtahay taariikhda magaalada Muqdisho. fadlan haddii aad nagu cusub tahay YouTube-keena subscribe saar sina share garay oo asxaabtaada la wadaag si ay asxaab badan nagu soo biiraan.